الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxyaabihii soomka burinayay ayaynu soo qaadanay oo in la ogaada aad ay muhiim u tahay waayo cibaadada aqbalkeedii iyo ansaxeedii ayaa ku xidhan weelkaad dhaaminaysaa haddii uu gunta ka daloolo waxba kama jiraan waxaaga saa daraaddeed waa in la gufeeyaa oo la ilaaliyaa cibaadada wixii ay ku ansaxayso waxyaabihii burinayay soomka kii u weynaa ama u darnaa ayaa inoo hadhay oo ahaa aljimaac fii ramadaan bisha ramadaan maalinkeeda oo qofkii galmo uu sameeyo waa qofkii oo xajkii ama carafo taagan oo galmo sameeyo kale arrintaasi aad bay u khatar badan tahay dembi weyn weeye waxyaabo ka ratibmaya ama ka dhalanayaana way jiraan inuu burinayo jimaac oo uu jebinayo oo kafaara gudna leeya waxa u daliila xadiidka saxiixee nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam nin baa nebiga u yima wuxuu leeyahay halagtu waan halaagsamay markaa rasuulku wuxuu ihi maa lak maxaa dhacay qaala waqactu cala imra'atii wa ana saa'im anigoo sooman baan xaaskii jimaacoon u galmooday buu leeyahay bisha ramadaan nebigu ma canaanan jirin calayhi salaatu wasalaam sida badan dadka ee wuxuu isku dayayuun inuu wixii dhacayna saxo tawjiih iyo tilmaanna siiyo waxa soo socda markaa wuxuu ihi hal tajidu raqabatan tactiquha ma heli karaysaa addoon aada xorayso maya buui nebigu haddana wuxuu ihi fahal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn ma kari karaysaa 2 bilood inaad soonto qaala laa ma heli karaysaa inaad siiso 60 miskiin raashin maya ninkii waa kii meeshii iska aamusay markii dambe nebiga timir baa loo keeno tiibuu siiyeyoo wuu idhi ku bixi markuu ihi waan baahanayna isagu siiyey sidaa daraaddeed halkaa xadiidka waxaa ka muuqda marka u horeeya in qofkii ay ku waajibtay kafaara gud qalle miyaa lagu leeyahay mise kafaara gudkaasunbaa ku filan waa mas'alo khilaafi ah oo qolyaha qaarkood baa waxay idhahaan xadiidka kuma jiro soo qallee laakiin jumhuurulculamaa waxay leeyiin de asalku wuxuu ahaa qofku soomkii jebiya kii cudurdaarka lahaabaa layi soo qallee mise waa midaan cudurdaarba lahayn waxaa su-aal labaada oo ku saabsan arrintanuun haddii ruuxii dumarka ahayd iyaduna ay soomanayd ma la mid baa ninka mise waxbay kaga duwanta oo kafaara gudkii iyadana miyaa lagu leeyay mise laguma lahaa xadiidkan aynu soo aragnay nebigu ninkunbuu faray calayhi salaatu wasalaam gabadhiina wuu ka aamusay ka aamusidaa uu ka aamusay baa markaa ahlulcilmiga iyo culimmadu ay qaarna leeyihin iyadii waa lagu leeyay kafaara gudka qaarna ay leeyihiin dee maba sheegin nebigu waa shaarice ma waxbaa dhaafi lahaa soomuu waraysteen iyadana muu idhaahdeen miya iyana soomanayd wuu wada daaweyn lahaa labadaba dhakhaatiirtu markay ninkii iyo gabadha mid xanuun ku arkaan la kala qaado waxay idhahaan bal iyadiina u yeedh hadday isaga arkaanna waxay idhahaan bal xaaskaagiina u yeedh aan baadhnoo kula daweyne dee sawkan aan baadhinba muxuu u baadhi waayey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxba waan lagu lahayn jumhuurtuna waxay ku doodeen war asalku wuxuu ahaa inuu qofkani qalleeyo asalkii unbay ku taagantah wax la iska ogyahay buu ahaayo su-aalaba aan u baahnayn masaladaas waa masale khilaafiya laakiin sida raajixa waxa weeye iyadana lagu leeyay waxay tahay waxay isagu yahay unbay iyaduna tahay wuxuu fuliyeyna way furisay warkaasi waa iskaga mid marka iyadiina waa laga rabaa kaasina qallihii kafaara gudkii labadaba waxaa markaa iyaduna su-aal kale ah kafaara gudkan dee waynu arkaynaa oo qoor la xoreeyo iyo 2 bilood oo la soomo isku xidhiidhsan iyo 60 miskiinoo wax la quudiyo saddexdaasuu nebigu istaba dhigay hal hiya cala takhiiri am cala tartiib miya saasay u kala horeynayaan oo kala horraysiintoodu waa waajib mise qofku wuu kala dooran karaa
oo markuu kan kari waayo uunbuu ka kale u guuri karaa oo isagoo kari karaya soomka uma guuri karaya miyaa inuu raashin bixiyo ma sidaasaa mise way isu barbar yaallaan saddexdu oo isagoo soomkii kari karayu raashin qaadanaya iminka addoonkii maba jiree culimada islaamku waxay u badan yihiin annaha cala tartiib falaa yuntaqal ilaa siyaami shahrayn limutataabicayn ilaa idaa cajaza can alcitq walaa yudcimu 60 miskiinan ilaa bacda alcajzi can asiyaam markuu soomka kari waayo ayuunbuu u guuri karayaa 60 miskiin inuu qoodiyo qofkii markaa waa in la weydiiya ma kari karaysaa 60 maalmood oo isku xidhiidhsan oo la kala jarin inaad soomto hadduu yidhaahdo maya dee raashinka bixi un baynu odhan waayo nebiguba intaasunbuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin ma odhanayno ha lagu tijaabiyo dhakhtaraha ku baadho waayo qofkan iyo camalku isagiiyo ilaahay buu ka dhaxeeyaa marka hore uu soomayey markii uu tukanayeyba tijaabooyin maynaan marinayn hadduu wax qaldo isagay ku qalladanta baadhbaadhi mayno wakaa marka qowl kooban weeye qowlka odhanaya waa imaam maalig oo qura odhanaya cala atakhyiir qofkuu kala dooran karaa xadiidka marka la eego waxaa u muuqanaya daahirkiisu inay la tartiibinayo kan markuu kari waayo ka kala guuro waa sidii kafaaradii dilka oo kale oo dilka marka qoorta la waayo 2 bilood baa loo guuray iyadu mabay lahaynba 60 miskiin oo la qoodiyo kafaarada dilku su-aasha kale ka imanaysa kafaara gudkan waxa weeye hal tatakararu alkafaaratu bitakaruri اljimaac kafaara gudka miyaa la soo celcelinayaa bisha ramadaan haddii uu ninku xaaskiisa u tago mid waa la isku waafaqsan yahay hadduu maanta xumaantan sameeyo oo uu ka kafaaro guto oo uu mar labaad ku noqdo waa kafaaro labaad taa waa la isku waafaqsan yahay waxa labaadoo la isku waafaqsan yahay hadduu maanta xumaantan sameeyo oo soomkiisaa kaga jabo oo uu idhaahdo weyse kuuma dhowrne sii wad haddana oo tii islaam ahayd ag fadhide uu mar labaad iyo mar saddexaad ku noqdo isla maalintii uun taasina waa kafaaro keliyahum ilaa waa isla maalin keliya maba soomane ka jabtae nin qoyani biyo iskama dhowra buuri khalaas bal iska waduun haata marka dhowr jeer buu ka dhigay maalintii waa isla maalin keliya oo dee uu ka jabo intaana waxa la isla waafaqsan inay kafaaro keliyata laakiin hadduu maalin u galmoodo oo intaanu weli kafaaradii gudanin buu haddana maalin kale ku celiyey waa 3 maalmood oo kala tagsan wax kafaarana muu bixinin taasaa culimmada islaamku ay u badan yihiin maalin waliba waa kafaaro gaara qaar baa waxay leeyihin kol haddaanu tii hore ka kafaaro gudanin oo lagu leeyahay maalmo dambena ku celiyey midun uga dhig qowlka hore raajixa waayo maalmo waa kala xurmo mid waliba maalin gaara wey inahaasi waxaynu odhan karnaa waa arrimihii la xidhiidhay kafaarada iyo jimaaca waana gafaad weyn waanu qofka aan naftiisa hanan karayn waa inuu iska ilaaliyaa wakhtigan ilaahay u xidhan subxaana wa tacaala ee fadliga badana qiimaha leh waa fursaddu qofku ka faa'iidaysanaya waa inaanu iska dayicin qodobka saddexaad haddaynu arkaantii iyo shuruuddii ka soo hadallay waxyaabihii burinayay ka hadallay qodobka saddexaadna waxa weeye mubaaxaatu siyaam aw umuur laa tufsidu siyaam arrimo aan soomkii jabinayn waxaa kowka ah inuu qofku maydho maalintii soomkaasi ama ha ahaada mid waajiba ama mid sunno ah ama mid mubaax inta mid kastaba soomku maydhigaasi baan leeyahay maydhigaasi ama ha ahaado mid waajiba ama sunno ah ama mubaax midku doonaya ha ahaado sidoo kale soomkiina waajib iyo sunno ku doonaya ha ahaado caaisha ummu salama xaasaskii nebigu waxay leeyihin mararka qaarkood waxaa dhacaysay nebiga in waagu u baryo isagoon weli maydhan waagoo baryuunbuu maydhanayaa subaxuu tegayaa waxna kama noqonaynin soomkiisii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax sheegaya arrintaasi inay ku gaar tahay nebigana ma jirto innaguna la midun baynu nahay maydhiga qofku waagu uga baryey isagoon maydhanin maydhigaasina ku waajibay jinaabo noocuu doonaya ha ahaado uu iska maydhan u waagoo baryey
walow dhagahaba ha ka galeen baa markaa culimada qaarkood ay leeyihiin maydhiga kol hadduu waajib yahay hadday dhagaha ka galaan dee laba waajib baa isqabsadee wixii uu qofkii ka fursan waayo unbuu yeelaya waxyaabaha u bannaan waxaa ka mida taqbiilu zawjati wa mubaasharatuhaa ilaa min alimnaa in dee ruuxii dumarka ahayd iyo ninkii iska ciyaari karaan oo mucaamaloon karaan wixii aan galma ahayn waa inaan galmana jirin biyana ka iman biyii taranka macnaha waxaa u daliila caaisha radi allaahu canha xadiidka saxiixulbukhaari iyo muslimba ku sugan waxay leedahay kaana rasuulullaahi yuqabilu wayubaashiru wahuwa saa'imun wa kaana amlakakum liirbi xaaskiisa waa iskala ciyaari jiray nebigu isagoo sooman laakiin dee uu ku filaa agabkiisa iyo alaabtiisa inuu xaaraan ka ilaaliyo marka kiina ilaalin karayo waad iska wadi kartaa weeye kii aan naftiisa ku kalsoonow inuu halkaaga iska joog mararka qaarkoodna iyadaaba si cad u sheegta waxay tidhi kaana yuqabilunii wahuwa saa'im wa ana saa'ima isagoo sooman anigoo sooman waanu samayn jirnay dhunkashada culimada kala saaraya bayna shaabi walshaykh odayga iyo qofka dhallinyarada kala saaraya waxaa ka muhiimsan in la idhaahdo qofka naftiisa hanan kara iyo la-aanteed ka naftiisa hanan karana way u bannaan tahay ka kalena uma bannaana ilaa cillada taasay ka dhigtay nebigana kuma gaar ahana waxaa u daliila cumar ibnu khadaab bay ka dhacday radia allaahu canh dhunkashadaasaan sameeyey nebi allow ka warran buuri dee waa biyo aad ku luqluqatay oo kaleu nebigu ku yidhi biyaha marka lagu luqluqdo aanu qofku waxba liqin ee lagu luqluqdo soomka ma jebiyaan marka kaama jebinayaan soomkii saasuu ugu jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam wakadalika almubaashara shayga mubaasharada la yidhaahdo waa wax sii dhaafsan dhunkashadii labada qof jidhkoodii oo isgaadha wixii aan kulan ahayn masruuq ardaygii caaisha taabicigaa jaliilka ah wuxuu uhi sa'altu caaishata maa yaxilu lirajuli min imra'atii saa'ima ninka maxaa u bannaan inuu kala dhaqmo xaaskiisa marka uu sooman yahay qaalat kullu shayin ila aljimaac wax walba wuu samayn karaa oon galmada ahayn bay tidhi camru bnu shuraxbiil waxa uu leeyahay ibnu mascuud kaana yubaashiru imra'atahu binisfi nahaari wahuwa saa'im cabdillahi ibnu mascuud asxaab jaliila buu ahaa caalima fiqigaadu yaqaana marka maalin weyntuu samayn jiray arrimaha wixii aan galmo ahayn cikrimana waxa uu leeyahay kaana sacdu bnu maalik yafruku qubulahaa biyadihi wahuwa saa'im marka waa mucaamaladii waay karaahiyana maaha haddii dhareer yari uu ka yimaadoon biyii galmada ahayn dhib male kaasi waysada uun mooyaane maydhi ma keeno waxaa la mida waxyaabihii bannaanaa ka mida aliqtisaalu wasabu cala ara'si litabarud qofkii inuu biyihii isku shubo madaxa ama tuwaal saaro iskulayl uu kululaaday daraaddeed si uu isugu qaboojiyo walow jidhkiisu haba ka cabo masaamida meelaha daldaloola xadiidkaasina waa sugan yahay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam biyaha isku shubaya haraa daraaddeed maydhashadiina hore aynu soo marnay waxaa afraadoo qofkii u bannaan dee luqluqashadii iyo sankii oo uu biyaha geliyo min hayri mubaalaqatin isagoon xagga bacaraarka kore u eryaynin biyaha wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman laqiid ibnu sabra asxaabigii la odhanayuu nebigu u sharxaya habka loo weysiisanayo wuxuu kuhi markaad weysiisanayso uu ku yidhi markaad weysiisanayso biyaha sanka geli korna u geli ilaa bacaraarka si halkaa shaydaanka ay uga buufiyaan halkaa fadhiisanaya sare ilaa inaad sooman tahay mooyaane marka macnaheedu kor ha u gelinin biyaha weye mar labaad macnaheedu haddii kor loo geliyo oy xaggaa sareed aadka uga damqato ay gaadhaan waa jabaya waxyaabaha qofkii u bannaan waxaa ka mida tadawuqu acaami lilxaajati maa lam yasil ila aljawf wixii dhadhan leh ee aan gaadhin ama wixii afka geliye aan gaadhin caloosha wax dhiba ma leh kaana ibnu cabaas yaduuqu alkhal aw shay maa lam yadkul xalaqahu wasaa'im ibnu cabaas baa sidaa le qofku wax uu dhadhamin karaa haddaanu xaggiisa hore gaarayn raashinka calaalintiisina waa la mid ayay leeyihin qaarkood culimada waxay leeyihin haddii dee maaragtay qofku liqi karaya waa ka taxadiro aad isaga ilaaliya xijaamadii iyo toobinkii la isku khilaaf
oo toobinka dhiigga la iska sii daayo la iska qaado wuu jabiyaa soomka iyo maya labadaba culimmadu way yidhaahdeen laba xadiid baa ka sugmay qolyaha qaarkood labada xadiid waxay qaateen ka odhanaya wuu jebinayaa sida madhabulxanaabila axmed ibnu xambal iyo rag lamida qolyaha qaarkoodna waxay qaateen ka odhanaya ma jebinayo oo nebigaa istoobay isaga oo sooman labadubana waa saxiix waxay u badan yihiin inaanu jebinaynin saa daraaddeed qofku inuu ka taxadiraa wanaagsan anas ibnu maalikna wuxuu leeyahy waxaanu toobinka u diidi jirnay wakhtigii nabiga qofku daciifinaya dhiiggii baa laga shubay ma hayn karayo soomkii waxay sabab u tahay inuu ka jabo marka inuu iska daayo ayaa wanaagsan saa daraaddeed baa asxaabta ridwaanullaahi calayhim kuwooda istoobayaa bisha ramadaan habeenkii bay istoobi jireen waxyaabaha isaga bannaan qofkii waxaa ka mida al-iktixaalu waalxuqna inuu iska indha kuulan karo ama indhaha iskaga shubi karo dawadii dhakhtarku u qoray iyo wixii uu marsanayey indhaha ku shubi karo ama irbadihii isticmaali karo wixii aan ahayn irbadaha raashin u noqonaynin waxyaabaha qofkii u bannaan waxaa ka mida cadaygii gelin hore iyo gelin dambeba inuu iska isticmaalo السواك مظهرة للفم مرضاة للرب إلهينا ورالي قليا أفكنا ونظيفيا وحاوب بنانو كلا ابتلاع النخامة هذه حاكدي سكا حتى رافته ما تشبينيس إلا وحقفك سويدين كراه وهو سخن لا يسكت فايته هذا كبسي بتنا ما تشبينيس ابتلاع ما لا يحترز منه وحيانو كرين وسكيل عليه warshadu ka shaqaynaya dhaskeedii boorkan iyo qiiqan magaalada ka duulaya waxaa soo dhan laakiin uu sigaarkii qiijiyo oo qiiqii uu liqoolaada qiiqa warshadu la mid yahay kan la gubay maya adiga ayaa anta ladii dakhanta ka adaa doontay oo afka geliyay bakhaaqda laftigeeda qofka asmada ama xiiqda la isku buufiyo oo culimadu leeyihiin waa hawo wax dhiba male bay yidhaahdaan hadduu ilow u cuno ama u cabo alla calfiyey ilow buu u cunay una cabay khalaas waxba soomkii kama noqonin arrimahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofkii isaga bannaan ee aan ka jebinaynin soomka kuwase la isku khilaafay inuu iska daayaaba wanaagsan qofku ka taxadiro isagoo khilaafka ka baxaya waracana raacaya